wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Cabdulaahi Daahir Jaamac Baashi ayaa daahfuray barnaamijka waxbarashada diiniga ah iyo wacyigelinta dadka baahiyaha maqalka qaba ee guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wasiirka ayaa sheegay in barnaamijkani ka koobnaan doono silsilad duruus iyo muxaadarooyin ah oo laga fulin doono guud ahaan dalka, kuwaasoo sidoo kale ay qayb ka noqon doonto in xitaa khudbadaha masaajidada loo sameeyo tarjumaano dadka baahiyaha maqalka qaba ugu tarjuma luqadda suuldhabaalaha ee ay fahmayaan. wasiirku isaga oo arrintaasi furitaankeeda faahfaahinayana waxa uu yidhi wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay ugu magac dartay waxbarashada diiniga ah iyo wacyigelin loo samayn doono dadka baahiyaha maqalka qaba. marka barnaamijkan daahfurkiisii koowaad maanta ayuu bilaabmay, waxaana uu ka koobnaan doonaa silsilad duruus iyo muxaadarooyin diini ah oo ay jeedin doonaan culimada waaweyn ee dalka, oo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay soo casuumi doonto, loona turjumi doono luqadda iyagu ay yaqaanaan loogu turjumi doono dadka baahiyaha maqalka qaba, oo runtii aad iyo aad u fara badan kuna filiqsan daafaha dalka oo dhan, oo gobollada waaweyn oo dhan jooga. barnaamijkan waxaa ka qayb qaadan doona culimada waaweyn ee dalka, sida maantaba darsigii ugu horreeyey halkan uu ka baxay. sidoo kale barnaamijka waxaa ka mid noqon doona in dadka dee inaga mid ah ee dadkeennii ah in loo turjumo khudbadaha jimcaha, in loo turjumo masaajidada qaarkood intaanu calaamadino dad maaragta u turjuma la keeni doona haddii la yidhaahdo. waxaa la qorshayn doonaa in loo furo madarasad ama madaaris qur-aanka iyo diinta ay maaragta ku bartaan. runtii xogta iyo warbixinta ay soo gaadhay waxay sheegaysaa in dadka baahiyaha maqalka qabaa dalka waxbarasho fiican oo maadi ah way helaan. qaarkood baa jaamacadaha ka baxay, laakiin waxaan aad iyo aad runtii maaragta saameynteeda leh in ay baahi weyn u qabaan inay diinta la baro, qur-aanka la baro, cibaadaadka la baro, siday u cibaadaysan lahaayeen, khudbadaha jimcaha ay la socdaan. marka taas baan ugu kaliftay in aanu doorkan aanu barnaamijkan runtii maaragta aanu bilowno. waxaanu iska kaashan doonaa wasaaradda waxbarashada oo runtii macallimiin badan tababartay, aanu iska kaashan doonaa haddii la yidhaahdo, iyo hay-adaha kale ee qaranka aanu iskaashiga la samayn doono. gabagabadii waxaan ka codsanayaa warbaahinta qaranka oo runtii maanta telefishinka qaranku nala joogo, door weynna runtii ka qaata wacyigelinta iyo faafinta diinta islaamka. aad iyo aadna aan ugu mahad celinayno. waxaan guud ahaan ka codsanayaa warbaahinta qaranka iyo gaar ahaan tifiyada gaarka loo leeyahayba inay u sameeyaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba saacad gaar ah oo ay ku soo talagalaan dalka oo dhan gobol walba, oo duruustan wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay bilowday ee luqadooda loogu turjumaye diiniga ah ee laga baahiyo telefishinada, kuwa qaranka iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaba inay saacad gaara ay u sameeyaan. annaguna insha allahu tacaala culimo badan oo waaweyn ayaanu barnaamijka kusoo casuumi doonaa. mawaadiic kala duwan oo ay baahi weyn u qabaan ayaa loo duubi doonaa. waxaan rajaynayaa barnaamijkani inuu guulaysan doono, dadka maaragta dee baahidaas qabaan uu ka jawaabi doono baahidooda diimeed iyo wacyigelineed uu ka jawaabi doono. aad iyo aad baa umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi